waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliyeed oo ugu horeeyo mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre casuumadii qiimaha badnayd ee ay noo soo direen noogu yeedheen caasimadii qaranka Soomaaliyeed iyo soo dhaweyntiina loo sameeyay ay noo sameeyeen golayaasha xukuumadda iyo shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho aadan uga mahadnaqayaa waa ka cudur daaranayaa soo dhaweynteedii dad fara badan oo shacab oo Soomaaliyeed oo banaanka taagnaa baa duruufuhu noo saamixi waayeen inaan soo gaadhno waa ka raali gelinayaa inaan la kulmin dadweynaha noo soo baxay ee muddadana sugayay waxaanu joognaa maanta xaruntii dhexe ee hay'adda maareynta masuubooyinka ee Soomaaliyeed waxaanu marti u nahay gudoomiyaha hay'adda mudane Maxamuud Macalin iyo howlwadeennadii kale ee hay'adda waxaanu ka koobannahay wafdi ballaaran waan hogaaminayay oo isugu jira xog hayayaashii maamulka iyo khubaro kale waxaana weheliyay wasiirkii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee xukuumadda federaalka mudane Jaamac Xasan Khaliif waa ka mahadnaqayaa dhammaan qaabilaadda naloo sameeyey iyo sida diiran nagu soo dhaweeyey xarunta dhexe hay'adda xarunta dhexe hay'adda waxaan u soo booqannay inaan uga warbixinno xaaladda hadda ay ku sugan yihiin deegaanada SSC guud ahaan iyo gaar ahaan duruufta ay la nooshahay magaalo madaxdii deegaankaas Laascaanood muddo ku siman 8 bilood Laascaanood waxaa ka jiray dagaallo aan waxba reebin oo qaybihii noloshu ay ku taagneed oo dhan saameeyey burburiyey dhibaato u geystay dagaalladaasi waxay sababeen burbur iyo dhimasho iyo dhaawac waxay sababeen barakac baahsan oo ay ka dhasheen daryeel la'aan caafimaad iyo cunto la'aan ku baahday deegaanada dhibaatooyinka intaa leeg waxaa lagu sifayn karayaa waxa weeyaan waa masuubadaasoo aadamuhu sameeyey masuubooyinka aadamuhu sameeyey bay ka mid tahay colaadda iyo barakacinta loo geystay dadka deegaankaas masuubadaas waxay u baahan tahay baaq ku aadan marka ugu horeysa bulshada Soomaaliyeed marka xigta xukuumadda federaalka ah iyo hay'adda maareynta masuubooyinka oo ka wakiil ah ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumaddaba arrimaha sidii wax looga qaban lahaa wakiil ah warbixin waafiya baanu ka siinay xaaladda deegaanka ka jirta gudoomiyaha iyo howlwadana waxay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan oo ay ka jawaabi doonaan baahiyaha aan u soo jeedin loo soo gudbiyey waxaan halkan baaq uga dirayaa deeq-bixiyaasha caalamiga ah oo aan ugu baaqayo inay isgarab taagaan sidii magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadii gaadhay ee colaaduhu ay reebeen dadkii barakacay soo celintooda barnaamij bay u baahan tahay dibadejin bay u baahan yihiin kaabayaashii nolosha ee deegaanka in loo nooleeyo oo dib loo abuuray u baahan yihiin hadday noqon lahayd xarumihii caafimaadka kuwii waxbarashada adeegyadii danta guud xarumihii biyaha kuwii laydhka iyo baawarka intuba waa burbureen waxaan baaqayga ku soo gebagabaynayaa hay'adda maareynta masuubooyinka ee uu hogaaminaya gudoomiye Maxamuud Macalin hadda iyo markii horeba way ka jawaabeen baahiyahaas waana ku mahadsan yihiin haddeertana waxaanu ugu baaqaynaa mar kale gudoomiyuhu inuu laabo dadaalka ay u galeen sidii baahiyaha deegaanka ka jira wax looga qaban lahaa aad iyo aad ugu mahadsan yahay gudoomiyuhu sidoo kale dhammaan howlwadeennada hay'adda maareynta masuubooyinka qaranka ee Soomaaliyeed waa uga mahadnaqayaa niyad samaantii iyo heelanaantii ayna tuseen
aad iyo aad baad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku. shirkadda Golis waxay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.